waxaa maanta magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal soo gaaray agaasimayaasha 10 wasaaradood oo kamid ah wasaaradaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland kuwaas oo kala ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo waliba qaar kale oo ka tirsan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland munaasabad kooban oo ay ku qabteen magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal ayaa ugu horreynba ujeedada socdaalkooda waxaa faahfaahin ka bixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaana uu sheegay farkayagan hawleed ee aanu ku nimid magaalada Boorama wuxuu ahaa supervision ama safar hawleed oo la xidhiidha mashruuca nafaqeynta qaran oo ah mashruuc ballaaran oo hoostaga xafiiska madaxweyne ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadkuna ay u tahay lane ministry wasaaradaha kalena ay yihiin wasaaradihii wada shaqeynta aanu la lahayn inuu ka shaqeyn jirnay mashruuca nafaqada qaran oo ah mashruuca la yiraahdo san oo runtii qaranka ay iska kaashadaan hay'ado badan oo caalami ah waxaanu doonaynay inaanu bal soo eegno waxyaha kala duwan ee wasaaradaha annaga hoos yimaada iyo sida ay ugu baraarugsan yihiin iyadoo aanu doonaynay kulankanna inuu noqdo kulan wacyigelineed iyadoo bulshada guud ahaan aanu doonayno inay arkaan in waddankeena lagala soo baxo waxyaalaha nafaqada ah inagoo haysana dhul wanaagsan xoolo wanaagsan iyo meelaha aynu ku tabcan karnayna haddana caruurteenu ay nafaqa darro u dhintaan waa arrin fool xun marka waxaanu doonaynay runtii inay bulshadana wacyigelin u noqoto mas'uuliyiinta ay arrimaha khuseysana aanu kala dardaaranno sidii ay wacyigelinta ay iyo dardargelinba ay ugu sameyn lahaayeen in cuntooyinka nafaqada leh ee ka soo baxa waddankeena dadka sidii loo bari lahaa loo wacyigelin lahaa hadday tahay dhinaca xoolaha hadday tahay dhinaca kalluumaysiga haddii ay tahay dhinaca beeraha hadday tahay dhinaca iskuullada iyo waxbarashada run ahaantii mashruucaasi oo ah mashruuc aynu doonayno inaynu ku baahino waddanka oo dhan si ay u yaraato nafaqa darrada asiibta caruur badan ee ay u leedaana hawsha aanu soconay hawshaas bay ahayd aanu joogi doonaa dhowr cisho ilaa berri waanu joogi doonaa magaalada Boorama meelo kale oo soo marnayna waa ay jirtaa waxaanu runtii arki doonaa gudoomiyayaasha wasaaradaha kala duwan ee ay hoos tagaan wasaaradahan kala duwan aanu ku wada soconnaa kulan baanu qaadan doonaa madaxda gobolkana waan arki doonaa barasaabka iyo madaxda kale gobolkaba Axmed Daawo telefishinka caalamiga RTN magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal